salaada janaasada marxuum maxamed qanyare afrax waxaa lagula dukaday xarunta madaxtooyada villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay salaada janaasada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanada labada gole mas'uuliyiinta heer gobol iyo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka salaada janaasada marxuumka kadib waxaa loo qaaday meedkiisa qabuuro ku yaala degmada Daynil ee magaalada Muqdisho halkaas oo ugu dambeyntii lagu aasay nin ay wada dhasheen marxuum maxamed qanyare afrax ayaa tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed uu marxuum maxamed qanyare afrax ka baxay علي مهدي محمد عمر مدحوينه ka soo noqday Soomaaliya qaar kamid ah xildhibaano sanataro iyo duubabka dhaqanka oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa tacsi taas la mid ah u diray ummadda Soomaaliyeed oo uu ka baxay marxuum maxamed qanyare afrax oo ay sheegeen in wadanka Soomaaliya wax badan uu soo qabtay isla markaana waa nin wanaagsan waxaan horta Ilaahay ka baryaynaa in maxamed qanyare جنة الفردوس الأعلى بدون حساب إن إلهي أكون من نيست أيان إلهي وبرينا وعن إلهي كبرينا إن قبر جيس إلهي النوريو أيان إلهي وبرينا وعن إلهي وبرينا إن قبر جيس إلهي واسعيو أيان إلهي وبرينا. waxaan marka hore tacsiyan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dadka ku nool gobolka Banaadir geeridii xanuunka lahayd ee ku timiday محمد قيار أفراح محمد قيار وحوها أو صوماليات وحوها سياسي شو عداية وحوها نين دول كصومالي إدكتو آدل ويقيني وحن إلهي وقبرينا إنه إلهي جنة جيو كادل نقمهرين علم هذه هدو هذلي لكن دعاده وندعي الله أقبله صاحب كيس سيدو هاي وأنا صاحب كاي هاي si wanaagsan waxaan iskugu barinay Nairobi waana si daran waa isu cafinay hadalkiisa loo naxariistay wuxuu yiri haddaan saan ku aqaan wax dhacay ma dhaceen uu yiri warku waa badnay laakiin lahana ku ekayha afis mar hore is cafin haddana afis iyo masaamax meel qabo Allah geeyo qaraabadoo dhan sabar Allah ka siiyo oo anagu ku jirno maxamed qeyr Allah u naxariisto anagana samar iyo Allah naga siiyo aniga kaliya waxaan rabaa dadka inaan u mahad celiyo aad iyo aad u mahadsantiin dadka madaxda qaybooda kala duwan iyo dhammaan shacabka ka soo qayb galay oo runtii shucuurta muujiyay aad iyo aad ugu mahad celinaynaa Allah u naxariisto walaalkeen saaxiibkeen maanta wuxuu nooga baahan yahay inaan u duceyno إلهي هو نحرسته إلهي قبرك هو واسعيه إلهي صبر إيمان هكسي أهلدي هي أمد الصوماليات بقى marka walaalkeena sabar iiban Allah naga siiyo asagana Allah uu naxariisto dhamaana waa isaga tacsiyeen ummadda Soomaaliyeedna waa uga tacsiyeenaa saaxiibada joogana waa uga tacsiyeenaa iyo inta maaragtay dhageysanaysa hada billahi tawfiiq waa rukni diini ah oo qof kasto Ilaahay nafgelshay oo maalmaha kamida oo asna god la geyn doono nima doono kuna sadaqatul mawt isaga Allah u naxariisto aan leenahay intii ka soo qayb gashay xafladda oo mas'uuliin qaran leh oo dhaqan leh oo cid walba leh na waxaan leenahay waa mahadsantihiin miisaanka xasanaadka Allah idin saaro isagana waxaan ugu duceeynaa in Ilaahay oo wuxuu ka tala adduunyo aakhiro u gudbay in Ilaahay u naxariisto oo Ilaahay su'aasha u khafiifiyo Cabdiraxmaan Wabiri warbaahinta Daljir Muqdisho.